caqliga wanaagsani waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada ma jiro qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aanad adiga sirahaaga iyo meelaha aad u liidata aanad u sheegin dadkoo dhan ha kula dhaqmin dabeecad keliya waayo dhammaan cudurradu ma kaxaysa dawo keliya qabriyada waxaa ka buuxa dad badan oo ku fikiri jiray markaad weynaatay ayaad wax wanaagsan samaynaysaa ma jirto qof lagula ballamay inuu sii noolaanayo ilaa uu waayeel ka noqdo haddaba ha sugin wakhti kale haddii uu saaka waagu kuu baryey ilbiriqsi kasta aad neefsanaysa waa fursad kale oo allah ku siiyey ee ka faa'iidayso ka yeel kan ku arkaa inuu rajeeyo adoo kale inuu noqdo kan ku yaqaanaa khayr kuugu duceeyo qofka ku maqlaana uu rajeeyo la kulankaaga goortii xumaan lagu sameeyay dadka daciifka ah way argostaan dadka xooggan way cafiyaan dadka caqliga badanna way hilmaamaan dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan wax badan bay bixiyaan si dhab bay wax u jeclaadaan haddana waxaa soo gaara waxyeelada ugu badan waxayna awoodaan inay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhoola cadeen oo farxada mar waliba ku qanacsanow waxa aad haysato hana ka fikirin waxa aadan haysan waxa aad haysato waxay ku timid nimcada alle waxa aadan haysan oo ka maqanna waxay ku timid xikmadda alle haddaad maqasho teelkaaga oo dhacaya waxaa jira qof doonaya inuu kula soo xiriiro sidoo kale haddaad maqasho aadaanka salaada ogow in rabbigaagu doonaya inaad la xiriirto allah yow qalbiyadeena salaada ku xir inagu ma awoodno noolaynta ubaxyo dhintay balse waxaan awoodnaa beeridda kuwa cusub oo kuwii hore ka qurux badan waa isla sidaa noloshu uma istaagto sababta dhowr fashil oo na soo mara dadka qaarkood qalbiyadoodu waa sida warqad qalalan oo kale si kasta oo aad biyo uga dharjisa ma soo baxaysa sida abuurka oo kale haddaba naftaada ha dhibin u daa warqaduhu ha raacaan dabaylahe marnaba aad ha uga fikirin wixii tegey waayo waxay kuu keenaysaa murugo si lamida marnaba aad ha uga fikirin mustaqbalka soo socda waayo waxay kuu keenaysaa welwel iyo cabsi ugu noolow maalintaadan adigoo dhoola caddaynaya taasi waxay kuu keenaysaa farxad iyo raynrayn fariin qalbigaaga ku socota ahaw qof adag maxaa yeelay allah ayaa kula jira ahaw qof qaniya maxaa yeelay allah ayaa ku rasaaqaya ahaw qof laab furan maxaa yeelay allah ayaa ku ilaalinaya ha murugoon ha tiiraanyoon hana niyad jebin ku kalsoonow allah weligaa waxaan rajeeyaa haddii aan sacaadada iyo farxadda haysan lahaa ama meel laga helo ogaan lahaa waxaan dhex dhigi lahaa qalbiyada xanuunsanaya allow qalbiyadeena qur-aankaaga ku nuuri oo qashinkiiyo xumaantiyo qurun oo dhan ka dhowr